gaar ahaan ummadda muslimiinta fadlan xaaladayda waa u jeedaanin muddo aad u fara badan baa la socoteen waxaan xanuunsanaa muddo gaaraysa 14 sano jabniin baan u naafoobay sigta iyo boodada meesha iska galaan baan ka jabay waagii hore hadaan ka jabay waa lay kabay waa kala kamay waa lay jabiyay haddana waa lay kabay waxa lay u kabay sariir alwaax ah oogadeedo la sameeyay qacan ku samaysa oo ninkii kabayay uu sameeyay waxa laga dalooliyay sariirta meel ku beegan barida waa laga dalooliyay oo jaqaf laygu hoos dhigo oo aan halka saxarada layga qaado meeshayda aan ku kabnaa kadib waxa dhacday inaan baridii kala dhacay godkii daloolay oo barida ku beegnaa baan baridii kala dhacay wax igama saxigin kadibna alwaaxiga wuxuu iga galay barida inta fadhiga hilibkii uu jiray seedii uu jiray xididadii uu jiray laftii waxa isku dhigay alwaaxii laftaydii saasay u kirkirantay laftaydii waa kirkirantay qaab noocaas waan u naafoobay kadib hadii muddo fara badan la idheeyay taqaadiir baan u tagay taqaadiirta wax la dalka wax lagaaga qaban karo dalka dibadiisa wax laga qaban karaa dalka dibadiisa aniguna ma awoodo Soomaali Maxamed ay waxaan sidii kadib ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta u bandhigo xaaladooda kana heshid garab istaag aad caafimaadkaaga lugahaaga mar labaad aad dib ugu socotid intii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad uu siiyo dhaqaatiirtaadana aad heshido unugyada lagu sameeyo qalliin operation kadibna lugahaaga mar labaad aad dib ugu socotid Soomaali Maxamed ay sidaas aan ku soo galay social media wiilkan naafada baan ahay xaaladaas la noolahay markuu habeenii kordhaba xanuunku ay ugu siyaadaya 24 saac markii sanadii kordhaba xanuun horle baan dareemaa qalbowliyaal baygaan xaaladaas aan u naafoobay xaaladaas aan u fadhiyaa fadlan waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ee walaalahaya in ay garab istaago xaaladaydu waa xaalad noocaas walaalayaal waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta in ay garab istaago si aan u helo caafimaadkayga mar labaad walaalayaal aad baan idin salaamayaa